tagnay mid kamid ah arimihii bulshada ee aan u taagnayn ee ahaa wacyigelinta iyo hadii ilaahay bilicda ka qayb qaadashada iyo qurxinta dhulkeena anagoo la socona ciidankayaga qalabka sida afartiisa nooc marka ilaahay mahadiis waxa ah inuu ku guuleysano oo wax badan maanta soo qabanay xaawata ka waatana hadda u indha kuulnay oo nadaaminay waa arkaysi meel walba waa nadaafinay sayidka iyo faraskiisi waa la soo nadaamiyay dhagax tuur ilaa iyo SYL waynu soo dhaqnay mana ahan mid maanta kaliya nagu ahaanaysa cimrigayaga inta joogno waynu dhiiri gelin doonaa waynu qaban doonaa inagoo kaashanayna ciidankayaga qalabka sida afartiisa qaybood marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa cid waliba inay ka qayb qaadato nadaafada iyo quruxda magaalada cid u gaar leh ma jirto qof waliba meeshu ka soo gaaro iska xilqaamo ma ahan xaawataakii sayidkii kaliya inuu u baahan yihiin in la nadaamiyo meel walba dalkeena kamida ayaa u baahan in la qurxiyo waa inaynu qurxinaa nadaaminaa walaalahayaga ciidankayaga waanu garab taaganahay meel kasto ay ka shaqeynayaan waa garab taaganaanay inagana positionkeena kama marin 24 saac waa u taaganahay waana u taagnaan doonaa ma sha Allah alxamdulilaahi rabbil caalamiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركا كوباد إلهي با مهد اسكاله ميشان سوق هاي كيني waxaan soo nimid shaqo qaran inagoo ka soo kala jeedna ciidamada qaybahooda kala duwan sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo kooxda iskumaan iyo ciidanka nisa
waxaanu qabanay shaqo qaran waxa weeyaa waxaan naga go'an annagoo dalkii difaacayna oo waajib gudashadayadii qaran u taagan ayaanu waxaan isu xilqaannay isuna kaashanay inaan taariikhdii dalka boorka ka jafno sidaad ogtihiin halgamayaashii u soo halgamay dalkan hadday tahay sayid maxamed cabdulla xasan dhagax tuur maama xawataako SYL dhallinyaradii Soomaaliyeed 13 SYL oo u horseeday dalkan xorriyadda ilaa Axmed Gurey xorriyad aan maanta haysano qoon waliba oo dunida ku nool wuxuu boorka ka jafaa nooleeyaa taariikhdiisa waxaan wax ku nahayna waa taariikhdayada waxaanu go'aansanay maadaama madaxda xukuumadda iyo madaxda dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay dalkii bilicdii soo cesheen taariikhdii nooleeyeen kala dambeyntii sharciga iyo nidaamkii ay bileen horumar ay ku hageen dalka una heelayihiin annaguna aanu taaganahay difaaca dalka naftayada aan u horeyno waxaanu go'aansanay horumarka socda qaybtayada inaanu kaalin libaax ka qaadano waxaanu taa ka yaraad qabataa oo horumar wanaaga horumarka ka mid tahay waxaanu aragnay sayidkii iyo fariskiisii xinfanin ahaa oo boor soo gaaray ilaan dabayl baa dhacaysay oo booroystay waxaanu aragnay dhagax tuur oo booroystay waxaanu aragnay buuggii uu haystay ninkii la oran jiray shaqaawadiin oo ka mid ah halgamayaashii asne 13 SYL oo boor qariyay waxaanu aragnay maama xawataako oo boor qariyay gabar baana wehelisa waxaanu nahay afar ciidamada qalabka waxaanu nahay xoogga dalka waxaanu kaga soconnaa 3 nin booliska waxa ka socda nin asluubta waxa ka socda nin nisa waxa ka socda nin kooxda isku maana waxa ka socota gabar iyo wiil sayidkii waa soo dhaqnay faraskii waa u soo saliidaynay kareen baan u soo marinay waxa weeyaan dhagax tuur sidoo kaleeto dhagax tuur beentu waa xaraan beenta ilaahay baa caayay laakiin waa isku daynay wiishu dheer maanaan haysan waa kornay intii soka muraayadii waxaaqnay intii soka waa nadiifinay intaan rushayn karno biyuhu noo gaari kareen waa noo gaareen laakiin tuubo dheer iyo wiish waa weyn laakiin Cabdullaahi Ciise sidoo kale boorkaanu ka jafnay waa soo meernay waa u saliidaynay buuggii waa bayaan Soomaali weyn ay arkayso marka qof kastoo muwaadin oo Soomaaliyeed waxaanu ka codsanaynaa in uu horumarka qaybtiisa ka qaato hadday noqoto mid amni iyo hadday noqoto mid horumarin bulshada in uu ka qaato qaybtiisa libaaxa qoonna wax looma qabta aan wax qabsan Soomaaliya ha isku tashato Soomaaliya guul madaxdeenu guul madaxdeena Allah guuleeyo haddaynu nahay ciidanka oo qalabka sida qaybihiisa kala duwan sida military ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidanka asluubta Soomaaliyeed maanta si isxilqaana ayaan waxa isugu nimid in aan dayactirno oo nadiifino taalooyinkii geesiyaashii halganka ahaa inaan nadiifino isku xilqaano horta wax badan aan soo qaban waxyaabo badan ee qalab laana ee noo suurtageliyay waa iska jirtaa oo yaryar intaas gadaal mugu laaban laakiin waa gaarayna ayadan laakiin waxa muhiimadda ay tahay in haddii shacab tahay haddaa ciidan tahay intaba inaad diyaar u tahay difaaca dalka iyo horumarka dalka intaasaa muhiim marka waxaan guubaabinaynaa ciidamada kale iyo dhammaan intiina waajibaadka saar nin walba haymaado ha isxilqaamo maalin wanaag haddaa qabato taariikhday kuu galeen xumaan haddaa qabatan taariikhday kuu galeen marka waxaa muhiim ah madaxdeena maanta way dadaaleen wadankii oo qaabnaa oo taalooyinkii halgamayaasha ay ka maqan yihiin ay noo sureen annagana maanta waxaan diyaar u nahay inaan booska hid ka wadno inaan wixii ay noo keeneen ay noo qabteen annagana aan wanaajino nadiifino dayactirno dhisno hagaajisano dal walba dadkiisa dhis annagoo isku duuban shacab ciidan madax kulli waxaan diyaar u nahay inaan dalkeena wada dhisano